بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا عن جعلهاي ميلو البدونة تجوكتين كسو دبادة قحوتية داب جانل سيدات هران وبرتين أريمها كسابسن قحوتيها يورركوذ ودن بي ما أنت إن شاء الله موضوعين وحكو سابسن يهي سؤالها يجوابها كسابسن أريمها بوفستا تدبدن أي سؤالي سويدي سؤالها كسابسن بوفستا meel walba qaxootiga joogan sida gaar ahaan qaxootiga dhadhaab ama xiriyaha qaxootiga dhadhaab marka insha Allah su'aasha kuwaad aan ku bilaabo dad badan ay su'aal soo weydiiyay su'aasha ku saabsan in dad su'aal qaar soo weydiin oo dhaheen dadkii la soo dhajiyay ayaa jiraan 2009kii iyo 2010kii ilaa iyo 2016 dad badan la soo dhajiyay ayaa jiraan dadka soo face to face mareen oo ilaa hadda la hilmaamay marka kiisaskooda ilaa hadda maxaa akhbaar ka haysaa dadka sirjadooda intee la eg tahay marka su'aasha koowaad midaas way ma dad waxa jiraan 2009kii la soo dhajiyay face to face bas maraa jiraan sidoo dad waxa jiraan second face iyo face to face iyo second face labadaba maray ilaa haddana GFA aan gaarin ilaa haddana jawaabtoodii ilaa haddana UNHCR ilaa haddana wax akhbaar ay ka hayaan malahan marka su'aashaas koowaad ayaa rabaa inaan ka jawaabo sida ula socotaan horta waxaan waxa way waa hay'adana sideeda waa hay'adaha sideeda nidaam iyo waxyaabo badan ay ku shaqeeyaan mid kale waxaan waa buufisna waa inaad dibidajin u heshaa wadan kale mid kalena qof walbana qoraal iyo qadar ilaahay wuxuu ilaahay u qoro cid ka celinaysa malahan marka tiiskaada in lagu shaqeeyo waqti ayaa ka dhiman waqtigaasna xad ilaahay ka qoran tahay marka sidaas ay tahay laakiin hay'adaha sidoo kale qolada buufis u shaqeyso IOMta iyo sidoo kale UNHCR nidaam ay ku shaqeeyaan nidaamkaas oo ah tiiskaada marka hadii uu la hayso face to face bas amartay wali waxa ka dhiman arrimo kale in la buuxiyo ayaa jiraan waxyaabo badan ayaa ka dhiman marka waqtigiisa lama gaarin marka waqtigiisa munaasib la gaaro ay qoladan isdhaafinay UNHCR markay dhaafinaysaa hadii horaan face to face u martay hadii second face u marayso mar waxa dhacaysa dad badan oo face to face joogan oo dad cusub la soo dhijinay wad arteen amrina marka dadka hore dad qaar waxay Soomaaliya aaminsan yihiin dadka hore loo shaqeynay dadka cusub teelo wada ay Soomaaliya dhahayan ma ahan waxa way nidaam dadkaas cusub ayaa waxaan safaaradaha ayaa dooranayaan dad intaas cusub ayaa u baahanahay dad cusub ayaa ma dadka cusub ay ka soo dooranay markay soo doortaan dad cusub saas u marayaan adiga hadii face to face maraysi iyo hadii second face maraysi kiiskaada hore uu system ku jira marka waqtiga loo shaqeynay la kadhiman bas waqtigaasna UNHCR ayaa ursan marka hadii arrimaha asaas tahay marka waxa sameyn kartaa oo ku furan inaad UNHCR aad booqato qaybta protectionka gaar ahaan qaybta bulshada social service inaad booqato arrimaha la socoto oo kiiskii intuu maray qaybta translate atarto kiiskii maxaa ku dhacay marka waxyaabaha ka qaldan hadii wax ka qaldan yihiin waxyaabaha ka qaldan ay ku sheegayaan hadii waxba ka qaldanayna waxay ku leeyihiin kiiskaadu fiican yahay laakiin waqtiga ayaa wax ka dhiman marka anagana ma dhaxgal karno waqtigaada stress ay dhahayaan waqtigaada stress marka dadka walaaladeed waxa sheegayaa waxaad su'aalo qabtay mar walba qaybta commenting oo soo qoran insha Allah mar walba ankan jawaabta saxda ayaan raadinayna dadka su'aaladeeda mar hore soo rajeen Ilaahay oo fududeeyo marka UNHCR le arintaada ka jirtaa inaad booqato warka fiican ay ka soo helaysaa insha Allah inkastoo ay qolada translate dadka niyadda u dhisayso kiiskaad wax ka qaldan yahay badan runta ma sheegaan waxay dhahaan kiiskaadu fiican yahay saan waaye buuqi waxaasna ku furaan diidan yihiin marka insha Allah mid su'aada qodobka la waxa kamid ah dad badan ayaa hadana su'aal soo weydiiyo ku saabsan in dadkan midwalka ama tusaalahan dadkan curyaamiinta in rajadooda intee la eg tahay horta sida ula socotiin dadka midwalka ah waa kiiskooda waa fiican yahay badanaa protection concern badanaa dadka ku baxaan oo arintooda loo dedejiyo waa midwalkaasna sababta loo dedejiyay wax kale ma qofka xanuunsan ayaa daryeel caafimaad si uu helo ayaa dhaqso hadii kiiskooda u fiican yahay dhaqso la qaadaya marka laakiin waa inaa shuruudda koowaad waxa hadii midwal aad tahay ana midwal cunuga xanuunsan oo kaliya ma ahan waa inay hay'adda caafimaadka u qaabilsan xiriyaha qaxootiga dhaabsi haday dhaxlay tahay MSF ayna soo gudbisaa haday tahayna Red Cross ayna soo gudbisaa haday xariiq dheer tahayna IRC ayna soo gudbisaa marka waa in hay'adaha caafimaadka u shaqeeyo waa inay soo gudbiyaan markay soo gudbiyaan UN la soo gudbiyo UN markaas ay u gudbinaysaa qoladan safaaradaha u gudbinaysaa safaarad ku qaadana nasiibkaada markaas laakiin kiiskaada si dhaqsiya badan lagu qaadayo qodobka saddexaad waxa kamid ah dadka curyaamiinta rajadooda intee la dhan tahay ay dad qaar inay rajadooda ba fiican tahay horta rajadooda fiican tahay dhammaan qaxootiga u wada siman yihiin laakiin waxa badanaa dadka rajadooda zaad u fiican waxa waa protection concern oo ku qoran kiiskaada sidoo ku qoran yahay oo UNHCR xaggeeda ku yaala ay ku xiran tahay badanaa gaalada waxay fiiraan kiiska dhibkiisa ay fiiraan haddii kiis dhib badan u yahay arrimaha dhan ay sax ku yihiin ay been ahayn oo wax been awr ahayn kiiskaadu ku fududaanaya si u dhaqsiya badan arintaad wax ayo loo qabanaya marka dadka handicapka waa inay soo gudbiyaan hay'adan handicapka inay UNHCR soo gudbisaa waa inay protection concern dhibta ay sheegana cawashadooda waa inay cawasho run ahaataa hadii cawashadu assessment lagu sameeyo run noqoto
marka kiiskooda hadduu yahay kiis oo daran oo cabashadooda aad u daran tahay oo handicap soo gudbisa warqado fiican ay haystaan marka insha Allah markaas waxaa laga yaabaa kiiskooda siduu dhaqsiyaha badan in wax loo qabto oo saas buufis u helo marka buufista saas wey marka qodobka kale aan ku daray waxaa ka mid ah dad ayaa su-aal soo weydiiyay dhaheen dadka minority-da rajadooda intee la intay minority ayaa sheegtay muuqaalada hore aan soo sameynay dad badan ayaan u sheegnay in tuusas culays badan la saari doono medical-ka iyo handicap dadka curyaamiinta ah dadka minority-da ah in fursadahooda ay ka fiican yihiin dadka kale inay ka fiican yihiin hadda hore oo dad badan la qaadi doono ayaan sheegnay sidoo kale minority dad badan ayaa minority la qaadi doona oo meel Kakumo ku taalo Kakumo waa dhiraysan oo meel Kakumo meel dhan boos dhan ayaa loo xaqay marka minority ayaa la qaaday laakiin ilaa hadda xaqiiq sax nooma sheegin hadda hore minority la qaadi rabeen sidii controlist Sudanese la qaadi wareenay oo aagasne COVID-19 ayaa dib u dhigay haddana in la qaado macquul gal waaye laakiin wixii akhbaar ay muuqaalada kale ay soo sameynayna marka kiis walba buufis maray waa inuu ku xiran yahay protection consent dadka minority iyo dadka kale isku mid maahan minority ayaa kiis fiican haddii kiis fiican ku qoran yahay ay minority tahay oo ilaahay ku qoro inaad meesha sidoo dhaqsaha ugu baxdo ilaahay waxa lama ahan hal bil gudahooda ayaa lagu qaadi karaa haddii ilaahay xaqiisa soo dhamaato waqtigaada cambuladaada bariska inta ku cunaysa ay ka dhamaato oo ilaahay israaqadaada meel ku dhigo waa lagu qaadaya marka insha Allah rajadu way fiican tahay hadda bisha aan rajeynayno bishan hadda soonka hadii laga baxo bisha afraad bishanaad waxay sheegeen UNHCR qoladan IM taxay sheegeen in kiisaska buufiska mari doonaan in la kordhin doono buufiska kiisaska oo hadda marayaan buufiska loo yeero ama face noqdo ama circumference noqdaan ama GFA iyo INS sidoo kale medical iyo falayga inay kiisaska dadka yar u yeerayaan inay ka kordhin doonaan dad fara badan ay ka dhigi doonaan kiisaska yar u dar doonaan maadaama COVID-19 hadda la soo tabray marka waxay dhaheen waa ina kiisaska waxyaabo badan aan ku darnaa si ay dadka dhaqso loo buubsiyo kiisaska waa dardargelinayna sida Mareykanka sidoo kale wadanka Mareykanka wuxuu dardargelin doonaa buufiskiisa wuxuu leeyahay application badan ay ku soo dareen wadanka Mareykanka waxay rabaa in kiisaska Mareykanka medical dad badan ay sugay falay dad badan ay sugay dadkaas waxay leeyahay culays badan ayaan saari doonaa sidoo dhaqsiyaha badan dad fara badan ayaa la qaadi doonaa daabulada sanadka gudihiisa waa adeer doontiin marka targetkooda waxay rabaan sanadka inay xiraan sanadii hore ayaa COVID-19 saameeyay marka wixii dhan inay rabaan inay isku daraan laakiin waxay hadda wali si cabsoon waxay leeyihiin COVID-19 wali laga cabsi qabaay laakiin waa yareeyeen laakiin waxay dhahan kiisaska laakiin sida xooliga waa inaan wax ku darnaa fadlan haddii aad ku cusub tahay qaxootiga dhaabaxan ka codsanayna marka ku xasuusinayna inaad subscribe noo saartid jabaleelka afuratid sidoo kale like noo saar muuqaalkan waxaa rabaa inuu like badan 100 like ama 2 like badan inuu gaaro si dad badan u gaaro fadlan noo sheegay fadlan haddii aad tahay oo danaynayso arrimaha qaxootiga sidoo kale wararka buufiska dhammaan haddii aad danaynayso mar walba ku xiran tahay fadlan waxaan ka codsanaa muuqaalka noo faafisid marka insha Allah bil Ramadaan qeyraysan ay ugu jiraa 10 dambe ilaahay cibaadadeena naga aqbalo insha Allah walaaladeena isku duceeyno insha Allah wabillahi tawfiiq iyo muuqaal dama isku iimaano